أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. weli waxaan ku guda jirnaa duruustii musalsalka ahayd oo aan kaga sheekeynaynay raggii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyeeyey iyo siday u ahaayeen jiil iyagoo kale aan la arag, taariikhdana aan soo marin. taas oo aan nidhi muxaadaro iyo muxaadaraad iyo kutub laga qor laguma koobi karo, balse wax yar oo baraarujin ah ayaan ka sheegaynaa. waxaan cajalkan cajilka ugu horreeyey ama darsigii ka horreeyey aan ka sheekeeyey Khaalid ibn Waliid sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa anigoo aada u soo koobaya. maanta waxaan ka sheekeynayaa haddii ilaahay yidhaahdo Khaalid ibn Waliid markuu soo muslimay kadib dagaaladii uu ka qayb galay iyo guulihii uu ka soo hooyey iyo muxuu ahaa geeridiisii haddii alla yidhaahdo oo aan dib ka sheegi doono cajalka saddexaad haddii ilaahay yidhaahdo. walaalayaal, Khaalid ibn Waliid sidaan hore u sheegay wuxuu muslimay sanadkii 8aad ee hijriga. isla sanadkaa waxaa dhacay dagaal la yidhahdo qaswatu Mu'ta oo nimankii Roomaanka ahaa muslimiintu ay la galeen dagaalkaas muslimiintu ay Roomaanka la galeen. wuxuu ahaa ciidanka muslimiintu 3,000 ayay ahaayeen, Roomaankuna waxay ahaayeen 200,000. 100,000 waxaa la sheegay inay ahayd carabtii nasaarada ahayd oo kiristaanka ahayd oo dowladdii Roomaanka ku hoos jiray, iyo 100,000 oo Roomaan ah. dagaalkaas sababtiisu wuxuu ku bilowday rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanadaha waraaqa ayuu wuxuu u kala dirayey boqorrada caalamka marka intuu ka gaaray, isagoo markaa u sheegaya muhiimadda risaalada iyo muxuu ahaa islaamnimada u sharxaya. warqad baa waxaa loo dhiibay nin la yidhahdo Xaaris ibnu Cumayr al-Asdi oo ku socota boqorkii Roomaanka. intuusan meeshii loogu talagala gaarin ayaa waxaa qabtay nin la yidhahdo Shuraxbiil ibnu Cumar al-Ghazaani oo carabtii nasaarada ahi ka mid ahaa oo dhulka Shaam deganaa. ninkaasaa qabtay, xarig buu ku xiray. markuu xiray ayuu seefta markaa luqunta uga jaray. markuu qabtaybu wuxuu yidhi maxaad ahayd? suu yidhi rasuul nebi maxamed uu soo diray. waa uu qabtay markaa markuu qabtay ayuu markaa xarig ku xirxiray, markaasuu luqunta seef uga jaray. waxaa ka darayd dhowr safar oo Shaam ka timid oo safareeya ayay dhaceen oo ay dadkii wixii saaraana ay boodeen oo ay laayeen. carabtaasi dhibaatooyin badan baa muslimiinta loo geystay oo markaa 2 sano ka horreysay iska daba dhacay. laakiin markay dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii wuxuu go'aansaday nimanka in la edbiyo, waana dagaalkii ugu horreeyey oo muslimiinta iyo nimanka Roomaanka ah ay isku fara saareen. walaalayaal, Roomaanku muddo 1,000 sano ah ayay carabta xukumayeen. boqortooyo la yidhaahdo dowlad la yidhaahdo oo dowlad maamul goboleed oo kala ah oo yar oo la yidhaahdo al-Ghazaasina ayay carab ku xukumi jireen. kuwaasaa ka hooseeyey oo waxay rabaan carab muxuu ahaa uga soo fulin jiray. korna Roomaanka ayaa haystay dhulka Shaam iyo nimanka marka Roomaanka waxay qaado waayeen oo madaxooda geli waayey carab oo dadnimo iyo muxuu ahaa dowladnimo meeshaad aragtay ka taagan oo adinka ku hoos jira 1,000 sannadood baaba idin damcaya xukunkiina, weliba oo xaruntii markaa Shaam ahayd inay soo weeraraan filiwaabay ku noqotay. waxaa kaloo kibir ku sii riday iyaga iyo dowladdii Furus ama Beelshiyaanka ayaa dagaal dhex maray. mar waxaa laga adkaaday sida ilaahay suuratu Ruum uu ku sheegay nimanka la Roomaanka. markii dambena iyagaa adkaaday, waatuu ilaahay wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun. 627 markaa ahayd ay ka adkaadeen nimankii Furus. 3 sano kadibna dagaalkii Mu'ta ayaa dhacay, oo dagaalkii Mu'ta iyaga muslimiinta dhex maraya sanadku wuxuu ahaa miilaadiga 630 hijridan waxay ahayd sanadkii 8aad. iyagoo marka guul 3 sano
كهر جول جاري ودولدي مركا أدونك وجوينات oo furus ahayd horena uga adkaatay ay ka adkaadeen iyo carab oo ay u arkayeen wax liito ilba aysan ka marmaranayn waxaasoo isbiirsada ayaa kallifay inayba qaado waayeen waa liin soo weerarayaa waa la weeraray waana la jebiyey indhahooda shanta ah ayaana wax la tusay li'anna dad geeridu ay kala macaan tahay inay noolaadaan ayaa waajahay rag waxaa waajahay oo ka hortagay rasuulku uu tarbiyeeyey salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh ilaahayna qur'aanka uu ku sheegay ee uu yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila ilaah aayad kalen uu ku yidhi rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah marka raggaa saxaabadaha ayay ahaayeen dagaalkaa marka saasuu ku bilowday oo dhibaatada iyo ayagaa geystay inta badanna mustashriqiinta iyo gaaladu waxay islaamka ka sheegaan inuu yahay diin horara oo mar walba wax weerarta waxaad arkaysaa marka dhibaatada ay geysteen in iyagu ay sababeen marka dagaalkaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam 3,000 oo ciidana ayuu diray ciidankaas waxaa madax u ahaa zayd ibnu xaaritha ayaa hogaamiye u ahaa saydna nin yaroo dhallinyaraha ayuu ahaa rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ciidankan ka madaxa markaana uu bandiiradii iyo calankii u dhiibay calankaasoo calan cadaha sida tuta taariikhda siirada lagu sheegay rasuulku calankii wuxuu u dhiibay zayd ibnu xaaritha ninka calanka loo dhiibaan hogaamiyaha ciidanka ahaa wuxuu yidhi rasuulku haddii sayd uu dhinto waxaa ciidanka hogaaminaya waa si aan tafaraaq uga dhicin jacfar ibn abi daalib jacfar hadduu dhintana cabdullaahi ibnu rawaaxa sidaa ayuu rasuulku darajadii ugu kala qaybiyey oo nin walba xilkiisii uu ugu magacaabay akhwaane islaamku fawdo iyo iska noolaan ma ogola rasuulku waxaa caadadii ahayd 2 nin hadduu meel u dirayo ninbuu madax uga dhigi jiray 4 hadday yihiin ninbuu madax uga dhigi jiray marka ummad dhan ay rabaa inay iska noolaato sida annagii sida hadda maanta aan ku sugannahay oo aanan lahayn hoggaan iyo maamul mideeya waa dhibaato marka waa arrin adag sidii u badbaadayaan halkaasaad ka garanaysaa marka علومته إدارة بلغة بركة رسولك عليه الصلاة والسلام دينا أول بس حبلا وكتربيه ماملكو بري دولة نمدو بري درس وناقة ولا نولا شاء وحول بيا رسولك بري واحد كأركي أساسية هذا مركاسي دبعوا أفرسو رسولك مركا ودور مايل أي مدينة كسو قاين عيدن كأيو الله دردار ميا درداران كان مركا يانو حيال كآخرين يا كدبنا خالد يوان أركي دونا دقال كمركان محوها مؤتأن كفا اللينينو خالد بن الوليد دورك وكقاتل رسولك وحول عليه الصلاة والسلام مقع إلهي كدولة أيو يري لا دقال لما عدوا يا عدوينا كاسو الشام جوغا وحد هلي دونتان بو يري رك انت دقالك كسعطان أما دقال لما يسان رك بعد لكل من دونتان بو يري كنيسة دهودا إيا الصومعات كودا ميلاها وحلقوا عابدو كجرا ودادك كفوا هذي كواس أيو يري وحد باتاه هاو قيسانين أيو يري waxaad arki doontaan kuwa kale oo shayaadiina oo madaxoodu uu yahay mafaaxis waxa la yiraahdaa meelaha ukunta shimbirtu ukumaha ay dhigato markuu wuxuu yiri kuwa sidaas oo kale shaydaanku madaxooda oo ukuma dhigtay oo madaxooda madax shaydaanku ukumaha dhigtay oo kale kuwaas la kulmi doontaan ayuu yiri madaxa ka gura ayuu rasuulku yiri oo seefaha kullaaya ayuu yiri wa kuwa shayaadiina kullay oo xadiisku aad buu u sharxay laakiin waxa la iska soo koobo waxa kale rasuulku uu yiri sallallahu alayhi wasallam qof dumar hadilinina ayuu yiri caruur dhalatayna hadilinina mid la nuujinayana hadilinina ayuu yiri dumarka hadilinina dumarka ilmaha nuujinayana hadilinina caruurta naaska hooyadood jaqaya oo nuugayana hadilinina ayuu yiri walaa kabiira nin weyn oo waayeelana oo aanan markaa dagaal ku jirina hadilina ayuu yiri wuxuu yiri geed timireedkana biyaha ku sii deynina oo ku qarqinina biyo macnaha wax dhaqan la yaqaan geedka markii la rabo timirta in la baabiyo in biyo badan lagu furo marka macnaha geedka timirtan ha fasaadinin uu way geedaha ha goynina ayuu yiri guryahana ha duminina ayuu yiri rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam wala tahdimu baytan gurina ha duminina sida ayaa rasuulku la dardaarmay jeeshkii muslimiinta akhlaaqdoodu sidaas ay ahayd waxaad arkaysaa marka sanadadan dambe dad mujaahidiin sheeganaya
oo aan tilmaamaha ku sifoobin ama Soomaaliya ha joogaan ama dhul kale ha joogaan ninka ku yidhaha mujaahid baan ahay jeish ciidan mujaahidiin ahaan ahay tilmaantaa ka fiiriya tilmaantaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raggaa siiyey ayay ahaayeen ciidankii muslimiinta sidaa ayaana qofka muslimka laga rabaa ciidanka muslimiintu inay ku sifoobaan marka aduu halkaa un kaga qiyaaso waan ka gudbayaa dagaalkiiba muxuu ahaa ciidankii waa la aaday dhulkii Mu'ta ee uu nimankii Furus ay deganaayeen nimankii la yiraahdo Roomaanku ay joogeen labada ciidan sidaan sheegay 3,000 bay muslimiintu ahaayeen iyaguna waxay ahaayeen 200,000 bal eega waxaa la sheegay halkii nin oo muslim ah waxa ku soo aadaysay 70 qofood 73 ku dhufo waa ilaa 210,000 ayay ahaayeen waxaa la sheegay marka dagaalkii waxaa bilaabay Zayd ibn Haritha goor aroorti ah salaada fajr kadib 3,000 oo 200,000 weeraraya bal arka eega way uu weeraray dagaalkii markuu bilowday nasiib wanaag ilaahi baa qadaray Zayd ibn Haritha meeshuu ku shahiiday calankii ama bandiiradii waxaa gacanta ku dhigay ninka la yiraahdo Jacfar bin Abi Talib sida nabiguba uu la dardaarmay Jacfar dagaalka markuu xog uu u socdo ayuu faraskiisu saaraa faraskii intuu boqnaha ka jaray wuxuu isla farasku ama kula cararaa faraskii intuu boqno gooyay ayuu markaa dagaalkii faraskii ka degay markaasuu dagaalkii madax isugu tuuray isagoo markaa gabaygaa tirinaya يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها جنة وديك بدنا أو معان بدنا أيوير أو وناك بدنا أو سودو أيوير أو جنة ومد آد وناكسب وآد أسودو أيوير طيبة وبارد شرابها ومد وناكسن أيوير معان كيدونا قبو كيدونا يشراب كيدونا وبارد ويه قبل دير بو وحير بان كس هلك بيت بان كسو قادنيا wuxuu kaloo yiri marka labadan bayd baan dhihi lahaa wuxuu kaloo yiri waruum qadana cadabuha kaafiratan ba'idatun ansabuha ruumna cadaabkeedii dhawaaday iyagoo ah kuwa gaala ah ayaa cadaabkoodii iyo jahannamadi gali lahaayeen ayaa cadaabka ilaahi u ballan qaaday ayaa soo dhawaaday buu yiri ba'idatun ansabuha meesha uu dagaalamay waxa la yiri barti ayuu isaguna muxuu ahaa ku dhacay gacantiisa labadii gacmood baa la jaray gacanta midig baa la jaray markii gacanta midig ay ka gooday buu calankii wuxuu ku qabsaday gacanta bidix meesha dhudhunka ah ayaa laga jaray markaas waxa la shafku ku qabsaday fakharra sariican dhawr buu u dhacay halka ayuu markaa isaguna uu ku shahiiday waxa markiiba asna soo degdegay oo calankii qaatay Abdullah ibn Rawaha gabiyaagii rasuulka Abdullah suxufi cajiiba oo saxaafada aad u yaqaan ayuu ahaa oo afka rasuulka iyo diinta ku difaaca raggii khatarta ahaa sida isaga iyo Xasaan ibn Thabit iyo Ka'b ibn Malik iyo Abdullah ibn Rawaha raggaasuna waxay ahaayeen raggii diinta aad gabayada ma taqaana muxuu ahaa cajiibka ahaa nimanka la yiraahdo Quraysh ku weerari jiray rasuulka iyo diintana afka ku difaaci jiray Abdullah markuu wuxuu ahaa suxufi oo kale meesha maanta dadku ay luqada ay fahmayaan wuxuu ahaa hogaamiye ciidan wuxuu ahaa ma taqaana muxuu ahaa intaas sifo ayuu lahaa bal eega marka isaguna dagaalkii markuu galay ee uu bandiiradii qaatay gabiyaabuu ahaa isaguna gabay buu tiriyay wuxuu yiri aqsamtu ya nafsu la tanzilanna aw la tukrihanna naftiisu la hadlaya waxaan ku dhaartay waan dhaartay buu ilaahay baan ku dhaaranayaa wuxuu yiri ya nafsu nafoy la tanzilanna aw la tukrihanna waa inaad degtaayuu yiri oo qasab aad dagaalka u degataayo macnaha oo aad dagaalantaa aw la tukrihanna ma li araaka takrahina aljanna qabigu dheeraa maxay tahay maxaan ku arkayaa buu yiri jannada ilaahay aad karhaysid oo aanan u dagaalamayn buu yiri waa inaad dagaalantaa oo aad si qasab u dagaalantaa ayuu yiri gabay dheer ayuu tiriyay ujeedadaydu inta baa iga xasuusin bay ahayd walaalayaal dagaalkii wuxuu socdaba ciidanka muslimiinta
markii culaysku ku batay oo saddexdii nin hogaamiyahana la dilay calankiina meel cidla uu ku dhacay ayaa calankii waxaa la soo booday nin la yidhaha thaabit ibnu aqrab oo nin weyn ahaa thaabit baa wuxuu yihi muslimiinay calankan yaan u dhiibaa markiiba adigu khaalid bay yidhaahdeen khaalid baa markaa calankii muxuu ahaa sidaa ku qaatay ciidankii khaalid hogaankii isagaa la wareegay dagaalkiina wuu socdaa khaalid wuxuu sameeyey tactica cajiib ah ilaahayna uu ku ilhaamiyey waana meesha uu kula baxayo sayfullaahi almasluul ciidankii gaaladu ciidan muslimiinta aad bay uga fara badnaayeen wuxuu sameeyey khaalid habeenkii markii la gaaray ayuu ciidankii kala bedelay kuwii hore joogana gadaal buu geeyey qoladii gadaal joogtana horay buu geeyey kuwii midigta bidix buu geeyey kuwii bidixna midig buu geeyey gadaalna ciidan buu geeyey meesha dagaalka xoogaa yaraha ka fog markaasuu yidhi weerar soo qaada ayuu yidhi adigoo takbiirsanaya oo allahu akbar le aadna u qaylinaya muxuu ah waxay farda iyo markaa hayeen boorna soo kiciya ayuu yidhi aroortii markii la gaaray roomaankii waxay waagu markuu baryaba waxay arkeen ciidankii labada maalmood ay isu hortaagnaayeen ciidan aanan ahayn oo wejiye cusub ah uu khadilay uu dhaqray marka iyo gurmad xoog leh iyo rag soo qaylinaya oo aad moodid hadda inayba carcarti qabaan waa raggii de laba maalmood dagaalamayay roomaanka marka argagax rucbiyaa ku dhacay khaalid marka wuxuu sameeyey intaa markuu sameeyey ayuu wuxuu ku qaaday rag xul ah intuu raadsaday weerar xoog leh ciidankii sida caadi ahayd dhexda ayuu ka kala muxuu ahaa ka kala kaxeeyey ciidankii markuu xoog ku dhex jeeray ayuu wuxuu tegey meeshii ugu dambeysay oo ciidanka dabadoodii ahaa ayuu tegey markay arkeenba ninkaanu xoog ku jeeray iyo isagooba gadaal u dhaafay argagax ayaa usii siyaaday baqa ayay marka inay baqdaan bay bilaabeen oo ay markaa intooda badan dhabarka jeediyaan furuntii dagaalkana ay markaa ka farxadaan khaalid markiina wuxuu sameeyey uu ciidanka xoogka ku jeeray ee uu safafkoodii kala kaxeeyey ciidanka ayuu yidhi markaa bixiya gadaal u saara ciidanka markaa waxay isku dayeen iyagoo dagaalamay ayay iyo dib gurasho furuntii dagaalka ayay marka dib uga baxeen ciidankii oo dhan khaalid halkaa ayuu muxuu ahaa uu kaga saaray dagaalku intuu socday xadiis bukhaari uu wariyey waxaa soo saaray bukhaari waxaana wariyay anas ibnu malik waxaa la sheegay ana nabiy sala allahu calayhi wasalam naca zaydan wa jacfaran wabnu rawaaxa marka dagaalku uu socday ayaa rasuulku wuxuu aad ugu macnaha ka qabray oo khabargeelid ahaan naca waxaa la yidhaha qofka markuu khabargeeliyaadka oo kale wuxuu yidhi marka adugu war ah zayd waa dhintay waa la asiibay calanka waxaa qaatay jacfar waa la asiibay oo macnaha waa dhintay waxaa ku xigay ibnu rawaaxa dadkii rasuulku u sheegaya waa intaan khabarka imaanin oo weli dagaalkii socdo qabla an yaatiyahum khabarahum faqaala wuxuu yidhi marka raayadii waxaa markaa akhada raayata zayd fa usiiba uma akhada raayata jacfar uma akhada raayat uma akhada rawaaxa fa usiiba intaa markuu yidhi calankii waxaa qaatay zayd oo waa la dilay oo jacfar baa qaatay oo waa la dilay oo waxaa qaatay ibnu rawaaxa oo waa la dilay rasuulka ilaahina waxaa la yidhi fafaadad wacaynaahu tadrifaani rasuulkana indhihiisa ilmo ayaa saa uga daadanaysa raxmadiisa bal fiiriya allahu akbar marka wuxuu yidhi kadib waxaa qaatay yidhi markaa calankii waa markii khaalid qaatay sayfun min suyuufi illaahi xataa fatax allaahu calayhim nin seefihii ilaahay ka mid ah ayaa qaatay ilaahay subxana wa tacaala inta ilaahayna iyaga uu u furay markaa waxa weeye marka halkaas ayaa magaca khaalid uu ka raacay sayfun min suyuufi illaah waana midda uu khaalid ku magac aad dadku ugu yaqaanaan oo leeyahay khaalid bin waliid sayfun min suyuufi illaahi marka waxaa kaloo nebigu uu yidhi waa sayf ilaahay galkii ka bixiyey ee uu gaalada luqunta ka saaray macnaha sayfun min suyuufi illah aladii sallahu allahu cala almushrikiina waa sida marka walaalayaal sida ayaa khaalid ciidankii kusoo badbaadiyey muxuu ahaa waxaa marka la sheegay rasuulku saxaabadii qaar baa waxay yidhaahdeen nimankan way soo carareen rasuulku wuxuu yidhi ma ay soo cararine karaariin baa la yidhahdaa waa niman taatigeeda dagaalka rogaal celinaya ayuu yidhi niman soo cararay maaha waani dagaalkaasi sidaasuu ahaa khaalidna halkaas
ayay muxuu ahaa dagaalkii ugu horreeyey markuu muslimiin kadib uu galay weeye waa sanadkii 8aad sanadkii 10aadna hadee nebigaaba dhintay kadib oo hijriyadii 10 sano ay ahayd dagaalkaasi marka sidaa ahaa wuxuu ku dhacay marka dagaalkii khasaaradii kala dhacay ku kala dhacay labadii ciidan gaalada waxaa ka dhintay ama nimanka Roomaanka iyo Carabta isla socday 3,350 nin baa ka dhimatay muslimiintana waxaa ka shahiiday 12 nin ee uu ku jireen 3 nin hogaamiyaasha ahaa sida ayaana dagaalkii ku dhamaaday sida ayaana ilaahay ku hoojiyay dagaalka xigana waxa la yiraahdaa qaswatu Yarmuuk waana dagaalkii lagu soo afjarayay dagaalkaas ayaa Khalid dhamaantii isaga ayaa taliye ciidan ka ahaa oo hogaaminayay marka kadibna Khalid dagaaladii isxiga ayuu galay ugu dambayna waan arki doonaa cajaladaha dambaan ku sheegi doonaa hadii ilaahay yiraahdo Khalid iyo sida uu muxuu ahaa u geeriyooday maanta intaas ayaan muxuu ahaa ku soo koobaya wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.